تكاترا فنانك يا مين يبانو هيرنا تاريخ دهي سهار وحباس تكاترا فنانك يا مين يبانو هيرنا ماما هيري قطو كمان دلين تهرك الله ما حقبني وانا فوق الله مرتدان ورنا تلهفناها قبت الراء وفيتنا تدوينا هالغنوننا حصاونا دنت وحقنا تدوينا هالغنوننا حصاونا دنت وحقنا kulanti wacan oo wanaagsan dhamaan baa khiyaarta wadanaga daawanaysa waa mar kale iyo barnaamijkeena fanka iyo waliba suugaanta Soomaaliyeed barnaamijkeenan inta badan waxaanu ku soo marti qaadnaa fanaaniinta Soomaaliyeed laxmiistayaasha Soomaaliyeed iyo muusikiistayaasha Soomaaliyeed dhamaan ba fanka Soomaaliyeed inta uu ka kooban yahay barnaamijkan waa mid u furan albaabadiisa barnaamijkeena fanka iyo suugaanta inta badan waxaan jecelahay inaan ku soo qaato fanaaniinta qaybta heesaha idaacada radio muqdisho xilligan wad naga dhageysanaysaa telefishinka qarankana wad nagala socotaan barnaamijkana xilligan waxa marti iigu ah fanaanada weyne Soomaaliyeed waa Shukri Faarax Weheliya Cadow Sindiko waa Shukri Sindiko dad badan baa markay Shukri ka arkaan dhalada ama shaashada waxay moodi doonaan inay North America joogto maya Shukri waxay dib ugu soo laabatay dalkeeda hooyo ciideedii hooyo magaaladii muqdisho ay ku dhalatay ku soo dhaw Shukri barnaamijka iyo waliba dhulkaagi hooyo oo dib ugu soo laabatay in muddo ka maqnay waa wata Shukri waxaan rabaa horta ugu horeyn inaan ku weydiiyo imisa sanadood bad wadanka ka maqnay waxaan ka maqnaa muddo aad 20 iyo dhowr sano waxaan ku soo laabtay Allah u naxariistay markii ugu horeysay ahayd aabahay geeridiisii oo ahayd 2008kii aan ku soo laabtay muqdisho iyo mar kale oo ahayd haddana 2011kii wadeenu soo laabatay waa markii saddexaad markii saddexaad wata Shukri waxaan rabaa inaad iyaro warbixinayga siisid fankaagi iyo cid ku sheegtay dareenka codkan macaan ee bulshadu ay jeclaysatay fankan ay jeclaysatay sideed ku ogaatay inaad noqon karto fanaanad heesi karta horta anigu waxaan ka imid meel la yiraahdo waxaan ku dhashay xaafad la yiraahdo Boondheere qofkana hibad Ilaahay siitaan waa gooni ma sha Allah markii oo maartay aad ku soo korto meel fankii ama la ciyaarayo kabeebay ha ahaato ama dabshidkii laga booday ha ahaato janskada aniga ma soo arkin laakiin markan qurbaha tagay waligay waxaan jeclaa heesaha waxaan iga horeeyeen walaalahay iga waaweyn sida taqaano kale fanaanada weyn ee Shukri Muuse Weheliya si wanaagsan marka Shukri heesaheedii ayaan ka bilaabay inaan qaado waxa ku xigay fanaanadii weyneyd ayadana maam Faaduma Qaasin Hilowle ku xigeen heesaheedii kadib anigoo iska heesayo ayaa habeen waxaan soo yimaadeen fanaaniin badan meel sax okay soo yimaadeen anigoo dadku waxaan ahaa fanaaniinta ku dhex jiro ama eed la yiraahdo ciyaalka xaafadda oo kale marka waxaan jeclaystay habeenkii anigoo meesha la iska heesayo marka barooba wax la isugu dhiibay qof walba mikrofoonka bal tijaabi codkaagi tijaabiya lagu leeyahay ha qof walba wuxuu leeyahay meeshii waa la badnaa markii heesan meeshii ku tuuram ka soo leeyahay waa cunto looma gali kara halis intaan waa ka yaraa marka meeshaasina waxay ahayd North America in Canada magaalada Toronto marka Qadra Daahir Abdulqaadir Jubbo meeshii waa la dhamaa waa la buuxay sabriye waa la marka asxaabtii oo dhan aad fadhido maamna Nkrumah waa la badnaa intii ka fanaaniinta Toronto ku nool iyo Qadra Daahir oo markaas timid wadanka oo marti ku ahayd ma sha Allah marka meeshii aniga kaftan iyo sheekaban heestii ku qaaday markaas ay yiraahdeen inta looma gali karo maxaad u heesooyay fanaan u noqon weydo marka sax xoga dhiirigelin yar iyo hami ku gala markaas baa hami gala sax anti dambe waxaan la kulmay maama Khadija Abdullaahi Dalays sax oo ah maamadii fanka Soomaaliyeed sida loo wada garanayo macna xushmadna ka mudan fanka Soomaaliyeed iyo mujtamaca Soomaaliyeed maamadii ayaan wada kulanay oo tiri maamo haye maalban ka soo qaaday tir saaxiibkay baa ku dhalay ninkii ugu horeeyay oo heestii ugu horeeyay aan qaaday iga duuba aabaha ayuu ahaa sax anaga waxaan ugu tagnay maadaama dadka fanka jecel aan nahay magaaladii Toronto aan deganahay martay ka shaqeeya dadka inay dhaqankoodii ama heesoodii ay la qabsadaan oo dhaqankii caruurtii la baro dhaqankii Soomaalida la dhaqan kala leedihiin marka duqdii maamadii ayaan marti gelinay
markaasii tiri maamoy waxaan yiri adiga ma haystaa ugu tiri su-aashii ugu horreysay weydiisa aabaha halkiisii iyo walaalaha boosaskoodii iyo ma raacday markaasaan ku yiri hadda baan jeclahay inaan isku dayo marka baadhi ayada loo dhigaayo xalfadii ugu horreysay ee markay timid lagu soo dhaweynayay aan heestay ka qaada markaasay erey waxay ii bixisay tiri waa qoraxdii fanka Soomaaliya ما شاء الله ما شاء الله marka waa halkaas uu ka bilaabay meeshaas uu ka bilaabay waxaan rabaa marka inaynu dib meeqa sano laga joogaa waxaa laga joogaa xogaa waa joognaa markaas waxay ahayd 2000 iyo marka fanka bilaabay 2000 ay ahayd okay bal hadda 13 sano dib ma noqon karee bal heesta markaa kuugu horeysay anigii daawadayaashii dhageystayaashii idaacadda Radio Muqdisho ma xnaga maqashin karaysaa waa maqashin karaa waxay ahayd heesay qaado walaashay oo adeerkay maxaan dhalay Allah u naxariisto aabahay walaalkay ka yar shukri muuse weheliye oo ah فنان marka waxa la yiri wax aad adigu leedahay ayaa la qaadaa sax laakiin wuxuu walaalka leeyahay adigu baa sax taasana mise lama kala la wixii walaalka leeyahay marka heesta ayaa ugu horeysay heestaana waxay ahayd wayarintii iyo arwaaxii kugu ogaayay ahdidii waad qofi weysay iyo hawsideen kuwahaye hayga ordinay isha kuraalay waaw وريبا 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 ما شاء الله شكرا مسوي هلي ولي بان كوغو سي داري waxaan isku meel ka shaqeynay 2004 2005 warbaahinta qaranka oo Afrika ka shaqeyn jirtay barnaamijyo soo saari jirtay wariyana way tayaan ku gabanay waa tahay heestaasaad marka meeshii aad ku tuurtad qac ka siisay aan qac ka siiyay markaas ku leeyihiin hadda waxa gaarnaaba album buuxa inaad bixin horta album sameeyay buuxa inaad tunto sax marka albumkii markaan duubay waxa gacan aad isiyay haddana wadanka Soomaaliya aan isla joognaa ku soo wada noqonay markaasuna studio-ha ugu weyn Minneapolis ku rahaa Somali Touring Music oo haddana ah gudoomiyaha fanka iyo suugaanta agaasimaha fanka iyo suugaanta Maxamed Wardi ha marka abaal weyn isaga marka albumkaaga gacan ka geystay duubistiisa iyo duubistiisa ha noqoto ma sha Allah Maxamed ama showgii ugu horeeyay ee Minneapolis aan ku qabta ha noqdo fanka dhinacayga waa ninkii koobaad aniga aan respect siinka ما شاء الله أنا قلنا مركز ريسبكت وزن albumka Soomaaliya wuxuu ahaa garsoore هاي سها albumka ku jiray wax ma naga xasuusin hees wasagu ugu jeclaa horta waxay ahayd hees la yiraahdo alla dadku war badana waa wareey alla dadku war badana markay arkaan laba qof oo isjecel war ay la wareegan ma waa isku diraan waxa lama waayo saddexeeye marka hadalkii ayaan ku keenay waxaan dhahayaa iyadoo Carabiya iyadoo Talyaaniya ayadoo maaragtay Soomaaliya bal afarta af ma maqashin karaysa aniga dhageystayaashii daawadayaasha si aan u ogaano intaas soo afa yani fanku ma aha iska keen shuguri waa fanka waa sida hobbiga imka adiga dhiigaagu raacay waa wax kugu dhashay waa wax Ilaahay haybad ku siiyay nin ayaan jeclaa waaga ma sha Allah waa qiso marka sheekadu markay dhacdana waxa fiican wixii oo maaragtay aad aragto inaad heesto adiga ka sameeyso intii maaragtay qof TV soo daawado heesta ka sameyn lahaa marka wiilka ayaa jiray waxa noo dhaxeeyeen dad badan oo hadalkii iska soo toortay halkan wixii la yiraahdo wax kale la bedela sheekada la bedela ninkii waxaan dhahaa marka qof jacayl shukaansaday sharaf yeelan maayee sida shilin dab lagu riday ma ku shiilay caashaq su'aal fiican weeye ya waa su'aal culus dadku iga shakiyo sidaan hay shabeel cuna dadku iga shakiyayo sidaan hay shabeel cuna ubadkaayshide dadku Allah alnaas yadkalamuna katiir marna waxaan leeyahay alla dadku war badana oh god people talk too much diya miya janta barna trofe saasay beddelaysaa qaaraday waa tahay shukriye dalkii waxaa tagtay North America tagtay wadankii baa laga qaxay dhaqan aanad garanayn iyo diin aanad garanayn iyo cunto aanad garanayn iyo environment aanad wax badan aanad garanayn baa tagtay bal waxaad iga warantaa maxaa isbedelay maxaa dareentay markaad tagtay Mareykankii
maraykankii horta maraykan waxaa ka horreeyey waddan la yidhaahdo itaaliya talyaanigaad ku horreysay talyaaniga anagu kusoo kor horta maasha allah waxaana soomaaliya ninkii garanaya soomaaliya oo aniga waxaan ka tagay iyadoo nabada diyaarad baad halkaa ka raacday airportkaasoo nabada ayadoo nabada maasha allah aan ka tagay marka waxaan uga tagana jiray ahayd in caafimaad dibadda laga geeyo sax dagaaladii adiga xagga cabaar markaan soo joogo ku caafimaaday allaha u naxariistay aabbaha iyo hooyadayba waxaa markii dib baa laysoo celiyey halkaana lay keenaa sax dagaalkii xoogaa caafimaadkii fiicnaaday hadii reerkii baa qayliyeen waa yaraankii reerka waa in la soo cishooy keenaa ayayoo kale waa qaylisay waa laysoo celiyey sax wadankii la keen wadankii markii lay keenaba isla markii waxa bilowday xoogaa dagaal oo ciir bandow camal ha marka meesha la iga kaxeeyay waxa la geeyay Itaaliya hadan lagu celiya waaba magaaladaadii la soo baratay aan ku noqday meeshaydii wax ka bartay meeshaydii walaalahayba iyo hooyo aabba ah oo iga waaweyn oo halkaas joogeen marka meeshii aan ku soo barbaaray talyaanigaagii marka luuqadda Soomaaliga hadda ku hadlaayo marka waxa igaga badnaa luuqadaha talyaaniga aan ku hadlaayo hatta hadan kula hadlaayo hatta Soomaali markaan ku hadlaayo waxa shoonaya laakiin markaan talyaani kula hadlaayo kaama xisho illa waad ku soo noolaydo in badan bad noloshaada ku soo qaadatay laakiin dhaqankii markii lagu baro reerkayga alxamdulillaah ma ahayn dad dhaqankoodii ka tagay dhaqanka ku ah ixtiraamkii sharaftii qofkii guriga yimaada wax lagu leeyahay waalidka waay iyo wax ku ahaan dirka ha hooyo saaxiibadeeda lagu leeyahay habarirta ha dhaqankii oo dhan lagu baraya sax marka saa ayaan ku soo koray kadib ayaan North America meelaha u sii gudbay صح مريكان كاتبت بل مركي أتكتي مريكانكي فنكي واد لقطة لك الشيء فنكي أتقاني مركز الصوماليين كستود يريد حدنا ده واحد وجيد فن دنا وموسيقى دنا وقلب سوي استعراض حقنا أنت بدأ CD أما فلاش على استعمال محاد تستي محاد مقنع تستي كم مقنع يدلي وحاسة فنكي كم مقنع أنا وحنا جعلان لها إن أي بانتود absolutely waxaan aad u jeclaan lahaa because ninka baanka ama tumaayo wuxuu yaqaanaa habka loo garaayo habka maaragtay dhinaca ka soo galayso hadii ay gaftana hore ku wadaya isaga ku hogaaminaya laakiin muusikada hadda jiraan wax qiyaasan waa kii ku dhaafanay tooma noqonayo waa eragii kale inaad hore ka sii wadaan marka waxaan ka jeclaan lahaa inay maaragtay la sameeyo insha Allahuna dadkuna isku dabci ma markay dadka isla shaqeynayaan waa okay laakiin nin walba wuxuu rabaa iskiisa inuu shaqeysto waarun laakiin xitaa dhaqaale ahaan hadad fiirso qalabkan badan la tumay muusigan badan la garaacayo dad bay shaqadoodu tahay oo inay ay shaqeystaan ay ku qurxada dad badan baa shaqala oo aan ku shaqeynaynin qalabkaas aan ka gudbo wadankii intii aad ka maqneed sawir baad haysatay magaaladii Muqdisho inay burbursan tahay magaaladii Muqdisho inay tahay meel dhiig yaalo dadkii runtii baad imika timi oo xaqiiqadii waad iga ilaa shalay weyn wareegayno xeebta liidood heesta aan daawan doona aad ku qaaday iyo daljirkii dahsoona sida loo qurxi bal iga war magaaladii Muqdisho is beautiful absolutely ma sha Allah waxa la yiri hadii wax weyn aad haysan jirtay wixii weyn aad weyso wixii yarkaaba ilaahay ayaa loo sii tuugaa wax weyn inay ku noqoto alxamdulillah lagu shukriyaa marka halahan maanta aan marayno oo maaragtay xurriyadii dadkii isdhaxmaraya businessadii horta ummadda Soomaali ilaahay meel waa ku siba meeshoodii maaragtay qabowga aan joogno iyo guriga biilka aan ka dhiibayno dhamaanaynin iyo waraaqadaha ku socdo waxyaalo badan ay dhaamaan halka marka taagan tahay waxaan rabaa problemka ugu badan ee haysta hooyo Soomaaliyeed oo degan North America oo kale maxay tahay problemka ugu badan ee dhigi karo inuu maanta taaban karna haday tahay warqadaha sheegtay haday tahay caruur kaxaynta maxaa horta hooyooyinka Soomaaliyeed oo duqooshinka waayeelada dhigi karo maanta ayayaal iyo hooyooyin maamaday hooyad imrigeedii aan ku qiyaasi karo maasha Allah markaan jidka ku arkana aad ayaa naga calool xumaada waayo ameen rafaad karaan rafaadkay ku jiraan ma aha cunugaagiyo waxaad arkaysaa dad oo waxa lagu hayaa diintii ma aysan joogin annaga ma naqaano waxba qaldan hooyadii waxa arkaysaa inaa taqaano oo labisan oo qurux badan ama gabar taqaana hooyadeeda waayeela oo dharkii baatiga ay hay wadata ama guntiinadii xiran jaaka xirnayn oo lugeynaysa qabowga inta u socota xukuleeda hooyo waa lagu baxsanaya aniga markaan arkana ooyin baa iga soo qaado qofka aqoonisi aqoon darraba waan dafaa waa qaadaa baawurkan saara waxaan dhahaa hooyo halkeen ku geeyaa صح انت ربت حدافا بار الله كادب umadaada baari Allah kaaga dhigo ilmahaaga baari Allah kaaga dhigo
marka waxa waaye horta maamooyinka Soomaaliyeed aad ay ugu dhiban yihiin qurbaha siiba waayeelada meelay aadi karaan ma jirto banaankeeda usoo baxda barfaayaan maalmihii ay lugeynaysan waxa waaye baabuurtii iyo bustoodii meel ka mareer lahayn caruurtii bal ka waran iyaga caruurtana Allah noo soo hadeeyo inta badan wax lagu xabsiyada waxa ku jira waa caruurtii Soomaaliyeed meelaha caruurta waxa fiican caruurta halka in la keeno muqdisho loo Soomaaliya dalkooda lagu soo cesho differentiga u dhaxeeya waxa horta hooyooyinka Soomaaliyeed maaragtay ama kuwan dib la'aanta dhala ha ahaadaano ama kuwa qurbaha ku nool ha ahaadaano waxa waaye wuxuu u baahan yihiin dalkii dib in uu soo noqdaan horta wadankani dadkiisii uu tabay isaguna waa cidla cidla waaye meeshaas anaga qabowgaas waxa noo la geeyay sharciyada noola siinayo wadanka kuleel ka raadinayaan asxaan oo ma sameynayaan laakiin alxamdulillah waa dad nabadgelyo nasiye amaan loo yeelay laakiin qof walba oo gurigiisa waxa uu dhaamaa ma laha dalaanad lahayn dareen waa tahay fankaagii baan marka dib u soo noqonayna hadda maraynu sheekaysanayna waxaad ii sheegtay xitaa inaad qorto heesaha goormay kugu dhalatay Shukriye waxay ugu dhalatay waxa la yiri wax walba ciil ayaa ka keena waxa marka waxna farxad baa ka waxna farxada ka keena waxna jacayl ka keena waxa markaad go'ato ama aad wixii sidaad u rabtay aad u weydo ama macnaa feelingkaagi aad macnaa dareenkaagi aad kala xishoonaysa abwaanka Soomaaliyeed waxa fiican inaad adiga qorato sax marka heesta ugu horeysay aan qoray waxaan tusay joogle abwaana badan aan tusay oo maartay aan asxaab nahay ama heesahoodii aan qaado marka xad ahaynba qof waxa tahay ma sha Allah qori karaysa oo qori karaysa laxanka sidee iskutiin laxan anigu waa laba heeso ugu horeysay waa tii xamar iyo tan ii sheeg la yiraahdo hadda u qaadaya gudoomiyaha gobolka Banaadir aad ugu soo talagashay ma sha Allah waa tahay marka ma jiraan heeso wadaniyo oo tan aad xamareed qaadayso imika dam ugu talagashay leeda xamarey xal golo jooga igaho de horta erayga meel loo dhaafo ma jirto ma jira heesaha wadaniga sidee isku tinadiga qaadisto aniga waxaan kaliya jacaylku waxaan ka jeclaa wadaniga inaan qaado صح waayo ah dadkii kala baqnaa oo isku soo celinaya heesaha wadaniga waxa jirta heesan anigu aad u jecelahay oo qaadan adiga nimca dareeno caalayaho oo jeclaan la waliba yariyad hadda wax naga xasuusiso haday nimca ay nala joogto horta inkastoo inu salaameynana waan heesta waynu duubi lahayn ama waanu duubi doonaa horta saaxiibaday nimca dareen marna waa walaashay marna waa saaxiiba ayaan nahay dadku haday ciish meel wax ku wada cunaan waa walaalo de wada shisheeyna la joogana laga sii walaalana waan joognaa dad aad isugu xiran oo saaxiibana waa nahay dad maaragtay maanta dadkii jecel inay calankoodii u muujiyaan waa nahay marka nimcay anigana heestaas waxaan u malaynayaa in heesta ereyadayaale heesta ereyadeedii aniga qoray adiga oo Shukriya qoray aniga ma sha Allah hay laxankana nimcaas kale nimcaas sameeyay waa heesan isugu tagnay warheesta loo kacayahay heesta looma kala harin ma sha Allah muusigana yaa tumay Abdi Wahab Antarnaaje ayaa tumay muusigana ma sha Allah looma kala harin marka heesta qorisay maxaa dareenka ka keenay muxuu ahaa Shukriya waxa iga keenay waxyaalo badan oo maaragtay aan aniga aan aad uga qiirooda ayaan arkay waxa waaye marka gaalada anaga Canadian ka horta iyo anaga isku maalin ayaan nahay ana dhulku waa ka dareemaysaa inuu dhulkoodii yahay oo maanta ay tahay maalinta calankoodii sax iyo waxyaalo badan aan rabin inaan ka hadlo sax marka saa ayaan u sameeyay page-keena nimcaas kale laakiin ayada keygii ayaan idin qaadaya insha Allahuna TV-ga qaranka Soomaaliyeed waa duubi doontaa in the future-ka haduu Ilaahay idma aan ku wada kulanno magaalada Xamar walaashayna macdareen ma sha Allah waxay aad calankii dalkeenu aku caleema saarneeye ciidani weeyo imrigaagu dheera calanka buluuga irkacaadka marayo xidigta ku caano kugu casin maaye irka sare lagugu taagiye calayo isiya sharafada mudana calayo isiya sharafada mudan isiya sharafada mudan wabtaas halkaas eebada ku egtay wax kale laga daba oran karo ma jirto waxaan ku dadaalay heesta duubisteedana
waa studio liibaan yare oo liibaan jaamac oo magaalada Minneapolis oo asagana kaalin weyn ka qaatay heesta markay tagtaan waa tahay waxaan u soo noqonaynaa heesta koowaad ee barnaamijka aan rabo inaynu daaha kaga qaadno maadaama de muqdisho aad intaas ka maqnayd oo soo laabatay hees xaal golo joog iga wanaagsido waa xaal marintii ugu weyn hadiyad inta ka badan oo la isku keenaan uma garanay erayada ana qoratay heestaas waxa waaye anigu muddo badan ayaan ka maqnaa goorma ku fikirtay inaad heesta horta samays heesta waxaan ku fikiray 2 bilood oo ka horeysay aan xamar intaan imaanin ka hor waxaa jirto waxyaalo badan oo aan ka soo dhaqaaqo waayo markii dawladda Soomaaliya ka dhacday sax nabadda noqotay oo la istusay badaheennii jidadkeennii Muqdisho ilaahay dhul waan ugu manaystay ma sha Allah marka ayaan ku fikiray mar walbana waa isciili jiray oo inta inaan imaado ama aan muujiyo waxaan dhihi jiray xamaray mar baan ku imaanayaa insha Allah hadduu ilaahay marar badanna media Soomaaliyeed layga wareystay lay weydiiyay lagu yiri marar badan ayaa tagtay maxaad hadda kugu dhacay maxaad ku kacsan tahay maxaad ka helin baa jira marka waxaan ku yiri aniga fanaanada kaliya maanta la dhihi karo waa reer Muqdisho waxay ku dhalatay daljirka daadso marka heestaas ayaa igu keentay waxaan iri xamaray xidigtir xamaray inaan ooyan ka baqaya gada inaan ka saca waa xaal garo joogleego iyadoo daawasho oo badan loo sameeyay oo xeebtii liido maraysido daljirkaad ku dhalatay agtiisa aad joogtido oo editingkuna aanu de u kala hadin inta kamarada ay ku daba socotay ayaan jecel daawadayaasha iyo dhageystayaasha inaan soo daayo kadibna in barnaamijka dib ugu soo noqdo waana tan heestii daawasho dhageyso wacan waxaan filayaa inaad si fiican uga wada hesheen heestaas shukri heesta markaad qaadayso waxa ka muuqata oohin badan ba ka muuqata dareenkaaga caadi ma aha maxaa dhacay laakiin xamar markasta waad ma jirtay hadda 2 jeer hore timi maxaa isbedelay oo daragtay waxyaalo badan ayaa jira oo maaragtay qurba joogtada inay qurbaha isa siiyaan maaha qolkaagii markaad aragto dhibaatooyinkii iyo jidadkii hadda horta dawladdan alla hadaayo maanta wadanka joogta siday jidadkii ugu dadaaleen siday horumarkii maanta markaan maaragtay xaal golo joog la iga hoo markaan dhahayo waxa waaye waxyaalo badan ayaan qabaa inaan u qaban karno haddii aan nahay fanaaniinta qurba joogtada ah
wadankii hooyo صح ma aha wadankii hooyo kaliya muqdisho kaliya ma aha dhulalka kale maartay Soomaaliya oo dhan ay ka kooban tahay in maartay kulli waa dhulalkii hooyo صح marka waxaan jeclaan lahaa maartay qof walba horta wadaniyanimada iyo qeyrada waa loo dhashay iyo naxariista waa hibad ilaahay qofka bini'aadamka ay ku manaysto ilaahay bay sacalo qof calool jilicsan qof calool adag qof haddana shalay markaan taaladii joognana waxaan soo xasuustay Allah u naxariistay hooyo waxay dhihi jirtay wiilashina naga waaweyn hala geeyo jirka daadsan meeshii aan taagnaa ayay ahayd marka la heesta qaadaysa meeshii lagu ciyaarsiin jiray waa meesha kaliya xaafadda ku faani jirta boondeer meesha magaalada hadii lagu keenayo wadal jirka daadsan adoo soo marin magaalada ma mari jiray marka ma sha Allah taasad marka xasuusata taas ayaan xasuustay marka waxaan rabaa marka isku duubnaanta fanaaniinta Soomaaliyeed ee North America jooga iska warqabkiina iyo fanaaniin badan oo Soomaaliyeed oo wadankii ku xanuunsanayso oo ku dhibaataysanaa jira isku xirnaantiina baliga war horta waxa waay inta xanuunsan Allah caafiyo aamin inta kalena Allah ka qabta xanuunka laakiin fanaaniinta Soomaaliyeed hal wax inay ogaadaan way fiicnaan lahayd maanta caafimaadkaad haysata bari ma haysatid maanta sidaa tahay bari ma ahaanaysid haddaad maanta nooshaa bari waad imanaysaa laakiin adduunkii haddaada wax dhigan aakhiro wax kuma yaalaan marka waxa waa haddii shalay maanta fanaaniinta Soomaaliyeed fanaaniin badan halkan lagu sheegayo ay ku xanuunsan yihiin inay wax u qabtaan iyo ka badanba iska daayay waxyaalo badan ay u qaban karaan ayaguna haddii si loo fiiriyo waxay dhaamaan ma jirto qurbaa waa la isaga noolyahay bay magaca loo noolyahay maahe wax ay dhaamaan iska yar waxa waaye caafimaadkan ilaaha baxsho macnaha qofkii walaalkii wixii loo heli kara in loogu saacido halka kaliya maanta fanaaniinta Soomaaliyeed heli karaan waxa waaye waa halkii show ay qabtaan ay isugu tagaan aaway kalsoonidii la isugu tagi lahaa horta meesha inay daamo way fiicanta laakiin hebelaan nacbahay iyo heblaayaan nacbahay iyo kaliya ayaan rabaa horta number 1 in la iga dhigay sawirkeyga waxaasi ku mashquulaan yaa ka dambeeya ul iyo diirkeed aan ahaan haddii ul iyo diir la ahaanaynin qurbaha dadka jooga horta fan Soomaali Allah u naxariistan leela anintaas hadee waa tahay ma jiraan xiriir aad la sameeysan hadda sida ilaahay caafimaadka si cabdi taali warsamo xanuunsanayo kala jooga faarax siido xanuunsanayo isagana sidoo kale bintu Umar Gacal waad ogtahay iyadana waa dhaawac oo xanuunsanaysa hadda gaabirooba u dambeeyay baralays nuqlugiga marka dadka ma la soo xiriirtaano telefoonada ma kala qaad maxaa ku dhacay fanaaniintu waa walaalo waa isku bah kaliya arta manay ma kuwii hore mise kuwa hadda jira wax walaalo leeyma jiraan qof walba qofku dabeecad fahmayo la socdo kaas walaalayahay iyo meeshii interest ugu jiro walaalku yahay wax kale ma jiraan naxariistii dhan ma jirto ma aha waxa loo baahan yahay qofka bini'aadamka naxariis inuu lahaado ilaahay horta in laga cabsadaa fiican fankan carabkana maanta ku heysaysa gadaal uu noqon karaa taas xisaabta inaad ku darto waay naxariis inaad lahaato waay dada eheladoodii ogeyn qof jirradoo fanaan maxaa u sheegaysaa qof hooyadii isagoo u jeeda telefoonka ku cabayo leeyahay waxay soo wacaysaa barta lacag rabtaay qof kale maxaa fanaan muxuu kale u sheegayaa marka ilaahay ha isku dambi heesta labaad aad ugu talgashay dadweynaha fanka jecel TV-gana ka daawanay idaacadda radio Muqdisho toos baa lagaaga dhigeysanay heesta labaad aan ugu talagalay waa gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa Maxamuud Axmed Nuur Taarsan ayaan ugu talagalay waxaana taasna aan ugu talagalay hadiyad aan asaga u sida wadankii TV-yadii markaan ka daawano sidoo wadankii uu maartay uu sameeyay waxa uu adkarka uu yahay marka qofka walaalka markaad aragto ilaahu mu dhagax meel saaro ama meel dhagax ka qaado waa in la dhiirigeliyaa garab lagu siiyo marka saas ayaan anigu aan maartay shukri ahaan macnaha aan maadaama aan ahay fanaaniin ay jiraan reer Muqdisho ama kuwa qurbaha jooga ama kuwan aniga waxaan ka arkay meeyarka Muqdisho TV-ga aqoon kala maanta u leeyahayna ma jirto geesinimada iyo sidoo habka iyo wadooyinka iyo niyad furan yahay
iyo xoogga Waxqabadkiisa. waxqabadkiisa ayaan uga dhigay hadiyad yaa qoray heesta heesta anigaa qoray okay erayadeedii laxankeedii weligay laxan anigoo isku probay waa isku baroobeeyey I tried beautiful aan kusoo baxday Masha Allah. muusigan waxaa tuma kooshin yare kooshi yaraato wax ma naga maqashin karaysaa inta dadweynaha u sii deynay sharciga ka yaalo tarsan baa taariikhda galaya u taagnaa sanaaqdu inay toosto muqdisho asagoon tag kula haysan iyo ku tiirsan dowlad kaleeye ku tashtay tiirkii banaadir inuu taago tarsano waxaad tahay soomaali kaye tilmaantowow tacabkaagu la tacabkaagu toosiye ilaaha noo daaya meeyarka Masha Allah. inta ayaan kusii dhiirigelinaya wad shaqada meeshaadi ka wada ayaan leeyahay wata heesta marka waynu daawan doonaa heesta waa hees cusub waa duubtay haddaynu daawan doonaa insha Allah aan ka sii gudbo jaanis baad haysataa dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbo jooga ayaa ku daawanay oo waliba isku magaalahaydana oranaya wow mar haddii shukri muqdisho tagtay muqdisho tagisteed waa okay dadka message-ka u diraysaa muxuu yahay waxaan u diraa waxay tahay caradii nabad waaye qof walba gurigiisa horta inuu ku soo noqdo ma sha Allah wad aragtay oo muqdisho dhismaha qof walba waxa waa horta qofka inuu maseeris geliyo waaye haddii aad maanta dhahaysaan shukri sindikaad joogtaa muqdisho isku day inaad timaado isku day inaad gurigaagii aad dhisato oo aad dhahdid oo kale maanta gurigaagii aan kusoo noqdo biilna layga rabin hadday ugu badato korontii biyaad iska dhiibaysaa $50 ma dhamaanayso $50 ma dhamaanayso inta kalena adiga aaba nasteexi doonaba ma sha Allah barafkii ku dili maayo dhiig la'aan kuuma dhacayo lafa xanuun ku dili maayo kiniinka qoraxda la qiimaysa aniga ruma sheegaya aniga qoraxan soo doontay waxyaabaa dhiig la'aan yarna way hayday qoraxan soo doontay ma sha Allah wadankana Allah hagaajiyo waxaan wali sii dhiirigelinayaa aniga xaafadii aan ku dhashay sax Boondheere dariskaygii xalaasha ahaa wixii nool waa nool yihiin intii dhimatana Allah u naxariisto reer Boondheere dadka waan ka dhex muuqan jirnaa waagii uu joogay Allah u naxariistay baabasiyaad waxaan dhihi jirnaa baabasiyaad jugminay yeerta adaan kuula jirnaa laakiin maanta baaba xasan oo jugminay yeerta adaan kuula jirnaa waay
marka inaan dhulkiinii aan dhisano guryaheenii aan la soo baxno kabeebeydii dhaqan hidii dhaqankiina ku yaqiinay aan maaragtay aan iska muujino meelahoo dhan shukriye heesaha banaadirga sidee ku tahay wallaahi waxa la isku dayeen ma jiro ilaa aniga ma dhahay wax walba waa dhameeyay wax la ma jiro laakiin banaadirga waa qaada heesii banaadirga abwaan si gubno weyn la joogaa si qudhisay xitaa heesaynu ka rabnaayo oo ogtahay abwaanka aniga abwaanka maasha Allah waxa waaye waa abwaankeena Allah noo daayo waana ku faraxsanahay abwaansan gub abwaanka weyn inaan magaalada Muqdisho kula kulmo maaragtay anagoo North America magaalada isku wadana ma ahayn laba wadan kala ahayn Kanada Mareykan kala deganay aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta la kulmo mar hadduu deesanku wadankii joogo wadankii waa nabad way fanaaniintii soo noqdaan mar haddii abwaanadiiba soo laabtay anakoo dacaslaan lugeynayna waa la arkay tiyaatarka noo dhisa tiyaatarka in la dhisaa la isku dayo waa taa shukriye adigoo jaaniskan ka faa'iideysanaya yaa jeceshay inaad salaamto waxaan salaamayaa horta ummadda Soomaaliyeed inta fanka Soomaali xiisaysa inta magaalada Muqdisho ku nool inta nabadda jecel dawladda Soomaaliyeed oo maanta halahan anagu dhedhel kuma iman lahayn maantana waxaan dhihi lahayn bartiin lama arkeen anaga dhan waxaan dhihi lahayn la jijibinaya wala haadi laha moogta laba meel laga soo qaban lahaa laakiin dawladda Soomaaliyeed maanta maartay dhulkii iyo caradii airportkii iyo baasaboorkaaga xorriyad ku taaganaysay iyo VC dab lagugu siinaayay iyo kaameradii lagugu hagaajinay soo gashay marka waxyaalo badan ay qabteen waxa salaamaya airportkina tabadartay sida qorxda badan waxa ugu daran family-ga aniga ka dhashay dheer xamar baa u socotaa Allah ku arusho marka waxaan leeyahay walaalahay saqiir walaa kabiir meeshan ka salaamaya siday u dhan yihiin reer Faarax Weeli Cadow family-gaygo idil asxaabtayda reer Sindikoodan reer Weeli Cadow dadku uma yaqaanaan reer Sindikarta inay sida saaxiibada jamaca nooga dhig marka waxaan salaamayaa fanaaniinta Soomaaliyeed intii aan isku xiranahay hadduu Ilaahay idma abwaanadaada salaantii taarad gelin abwaanadaadii iyo laxamiistayaashaadii iyo wax ma nooga tilmaami kartaa yaa ugu badan heesahaaga heesayga aniga nacash camalan ka daartaa nacash ma taqaan qofba mar hadduu meesha darto waa ka qaadataa meesha arkan ka qaataa because hal abwaan looma go'o waligaa feera la noqdaa صح إن شاء الله أدو وحواي أبوان لكشرة كمده عبد عيسى كمده محمد يحيى كمده ولا بدن يحيى هدي أنتي أنا هالمامنا هالإسك كي عفيو بنا عادنا أنا هاي وحن كمده ويلك عادك عن معرتي عيسى إذا ليبان جامع أو أحدث كي ويلك دوبا ليبان استوديو ديو وارك ولا بدن وردي محمد ورد وصوشة كاس وحواي وأستاذ وين نكاس عالم معها مركه waxaa salaamaya fanaanada weyn ee reer Jabuuti Deeqa Axmed Gate walaashayna macdareen Siraad Maxamuud Kaahiye waa la wada dhan yahay iyo waalidiintaydo idin umada ka baqaysa Muqdisho waad imaan kartaan ana idin bilaabay waa u jeedaan carada nabad waay jugminay yeertana baaba xasan la jarnaa isku dayasaas sheekadu sida ha anaga reer Boondeera meeshii fiican la jiraa qaar kale na soo xijiyo waa maadsantahay aad baan kaaga mahad celinayna sida quruxda badan leed barnaamijka nooga la adigana waqtiga masaabaxa ay la qaadatay shalayto iyo maanta ilaahay ha naga dhigo dadkii maartay mar walba is xasuusta insha Allah isha soo xusa gabar aad u firfircoon oo ma sha Allah ayaa tahay intaas ayaan adigana hanbalyo ku siinaya marka fanaaniinta sida u jeceshayna ha ku jeclaadaan adigu ayaan leeyahay insha Allah waa tahay intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena fanka iyo suugaanta xilligan oo nagala qayb galaysay fanaanada Soomaaliyeed fanaanada xidigihida North America maanta ila jooga Shukri Faarax Weheliya Cadow Sindiko oo kamid ah gabdhaha North America ka heesa waliba gabdhaha ugu cadcad xidigahan dhigi karaano intaaynu barnaamijkeena kala ku kulmayno dhamaantii isku duuban kamarada waa Maryan Calaaye anigoo Manuuc Marxasan barnaamijkeena soo saaray in la socodsiinaya macallin markaysi ayaa isaguna editinka iyo qurxinta iyo qaabilsan oo barnaamijka ka shaqeeya aad baan kaaga mahad celinaya shukran adiga madamana تاريخ دهي زهار حباس كاترا نانكي صدق بين بانو هينا ماما هوران كتو كمان دلين تهرج الله ما هاجرني
baanu hawlgala marsidaan urinaa kala hufnaaha qabtiraa u heesanaa dadweynahaan hanuunin